Maadaama aynu dhammaanteenu jecelnahay inaynu ka mid noqonno dadka guulaysta adduun iyo aakhiraba, inta badan su'aasha soo noqotaa waxay tahay tillaabooyinkee ayaan ku gaari karaa. Haddaba waxaan jeclaystay inaan fiidiyowan idinkula wadaago 4 shay oo qof kasta oo inaga mid ah ay muhiim u tahay inuu ilaaliyo habeenka intuusan seexanin ka hor. Waa marka koowaadee xalli khilaafka idin dhexeeya adiga iyo Rabbiga oo ah waajibaadka Rabbi uu kuu diray oo dayacan. Iyagoo dayacan habeenkii ha seexan. Waa qodobka labaadee xusuusnow nimcooyinka uu Rabbiga kuu galay. Waxaad xusuusnaataa Ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu 9 bilood uurka hooyadaa kugu soo haye. Waxaad xusuusnaataa Ilaahay tabaaraka wa tacaala wax fara badan oo aadan ka maarmaynin ayuu ku siiyey adigoon weydiisan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay Ilaahay tabaaraka wa tacaala dembi dhaaf weydiiso. In fara badan dunuubta iska dhin. Dunuubta oo la iska dhimo oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf la weydiisto, albaabo badan ayaa addoonka looga furaa. Qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay dadka iska cafi. Maxaa yeelay sifada wanaagga cidda Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay oo uu siiyey waa dadka iska cafiya. Cidda kaliya oo ku nasata dabeecadahaas ayaa ah kuwa guulaysta adduun iyo aakhiraba.